anigu waxaan ahay dadka wax kaga koray maad aragtay lacagta komishiga doorashooyinka qaranku bixiyo oo abahay intii doorashooyinku ay socdeen ba maad aragtay ilaa 2002 wuxuu ahaa gudoomiyaha komishiga degmada Baki ma arkay saaka inuu joogo uu baqayaan filayaabo marka waxaan jecelahay mar kastaba komishigu inuu guuleysto waligay abahay shaqo ma weydiisan cid kalena shaqo ma weydiinin sidii uu dadka ugu garsoorayo adaa baqarnay shaqada waa shaqo cadaaladeed ee waajibkeega sida uu gudo ayaa abahay ku alla ma weydiisan cid kalena ma weydiin komishiga doorashooyinkana wade laantii ka sareysay 7 xubnood halka fadhi waa hay'ad garsoor weeye hay'ad cadaaladeed weeye hay'adaasi muddo dheer gurinta shaqo ku shaqeynayeen iyo wanaag bay ku shaqeynayeen waxaan aaminsanahay Soomaaliland laba hay'adood baa iyagoo aan xeer asaas ba lahayn haddana guuleysto shaqooyinkaygu guuleysteen mid waa hay'adda komishiga doorashooyinka qaranka raggaasi hadday isqabtaan xitaa wax kala qabtan bay lahayn haddana doorashada lagu wada qancay ku dhawaaqayeen ilaa maalintii la aasaasay komishiga doorashooyinka qaranka hay'adda labaad oo xafiiska imtixaanaadka qaranka shahaadadiisu ma fashilato isagana daawud ما بردوا تولوا حصوب حضي إن حير كي أساس كمشي قال سمينيه قيل بدن باقي يدي حفيسي بدن